qiso murugo badan. Wiil yar ayaa hooyadii ku dhihi jiray, hooyo waa maxay hadiyadda ugu fiican ee aad i siin doonto markaan weynaado? Hooyadii ayaa ku dhihi jirtay, markaad weynaato ayaad arki doontaa. Muddo kadib ayaa wiilkii weynaaday, laakiin nasiib daro wadna xanuun ayuu yeeshay. Markasta uu sii weynaadana wadna xanuunka wuu ku sii siyaadi jiray. Markii uu gaaray 20 jir ayaa aad xanuunkii ugu sii batay. Dhakhtarka ayaa wiilkii loo qaaday. Dhakhtarkii waxa uu sheegay waalidkii in wiilkii uu wadnihiisu xumaaday, noloshiisana ay waxyari ka harsan tahay. Wiilkii xanuunkii ayaa ku sii batay, kooma ayuu galay. Maalmo kadib ayaa wiilkii koomadii ka soo baxay, isagoo caafimaad iyo inuu fiicnaado dareemaya. Markiiba waxa uu yidhi, aabay hooyadeeda. Dadkii waxa ay ku dhaheen hooyada guriga ayay aaday. Isagoo ordaya ayuu gurigii imaaday. Waxa uu dhahay, hooyo hooyo. Waxa uu arkay warqad sariirtiisa saaran. Waxa ku qornaa warqadda, hooyo ma xasuustaa markaad yarayd ee aad ii dhihi jirtay, waa maxay hadiyadda ugu qaalisan ee aad i siin doonto? Wataa hooyo, wadnahaygii ayaan kuu hadiyeeday. Cajiib, hooyo waatan wax kasta u samaysa si ay ilmaheeda nolol wacan u siiso. haddaad dhamaysatay qisada fadlan u ducee waalidiintaada.